بسم الله runtii maanta waxaan taaganahay xarunta weyneed ee iskuulka Anwar oo ay taakuleen u sameeyso hay'adda caalamiga ee Ansar International runtii hay'adda Ansar iskuulka Anwar waxay saacidaysaa ama kaalmeynaysaa in ka badan 9 sano runtii dadka halka wax ku barto waxay isugu jiraan arday masaakiin ah aan awoodin inay iska bixiyaan qarashkii waxbarashada dadka halka wax ku barta waxa lagu tilmaamayo shaqo ay ku leeyihiin ama lug ay ku leeyihiin kuma jirto dadka u jeedaan waa dad masaakiin ah aan awoodin inay iska bixiyaan qarashkii loogu talagal waxbarashada dadkaan wax lagu tilmaamayo oo ah inay yihiin shabaab ama inay yihiin argagixiso wax lug ay ku leeyihiin ma jirto sida arkaysaanbo waa arday aad u yar oo ka muuqata inay diyaar u yihiin inay wax bartaan sidaas darteed marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Jarmalka inay u fiiriso habkii ugu macquulsan ee dadkan loogu ambaqaadi lahaa inay wax bartaan sababtoo ah dadkan haddii wax bartaan waxay badbaadinayaan mustaqbalka kooda tan dadka Soomaaliyeed iyo diinta iyo midka dalka Soomaaliyeedba sababtoo intaan haddii magaalada lagu fasaxo waxay keenayaan dhibaato far badan ayay keenayaan marka waxaan codsanaynaa qolooyinka Jarmalka dawladda Jarmalka inay u fududeeyaan Ansar International inay hesho wax walba xuquuq ay leedahay si ay u wadato howlaheeda sidaas darteed waxa u baahanaa marka in ardaydan ay helaan waxbarasho ku filan si ay u helaan mustaqbal ifaayo nagala kaalmeeyo inay wax bartaan caafimaad ay helaan sidoo kale waxyaabaha hay'adda Ansar International ay u qabato dadka waxa kamid ah inay caawiso dadka barakacayaasha masaakiinta ah dadka dhibaataysan inay u dhiso masaajido inay u dhiso meelo caafimaad ay ka heli karaan sidaas darteed marka waxaan codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku adkeenaynaa in loo ogolaado Ansar International si xor ah inay u shaqeyso ee dadkan uga faa'iideystaan si Ilaahay dartiisa ay berito ay mustaqbalkooda ugu abaalgudaan sidaas darteed marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku adkeenayaa in Ansar International dib loo fasaxo si ay u badbaadaan intaan iyo in ka badan oo aad u daruufaysan ay ku nool magaalada Muqdisho. Salaamu calaykum waraxmatullaah.